halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon. Assalaamu calaykum. waan ku salaamay daawada meel walba oo dunidan aad ka joogto ku soo dhawow macluumaad kooban oo ku saabsan hakinta nuclear-ka ah ee dowladda Iran oo hay'adaha sirdoonka ee caalamka isku dayeen, gaar ahaan hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. hay-adani waxay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka samaysay gudaha dalka Iran iyadoo doonaysa inay hakiso barnaamijka nuclear-ka ee dowladda Iran. macluumaadkanina waxaa qoray saaxiibkay Suldaan Cali Americo. waxay ku bilaabanaysaa 23 bishii Juulaay sanadkii 2011 afartii iyo bargalabnimo, laba dabley ah oo mooto saaran oo maraya jidka Bini Haashim ee koonfurta magaalada Tehran ayaa qoryaha darandooriga u dhaca waxay kala soo baxeen jaakadahooda, waxaana ay toogasho ay ku dileen nin aqalkiisa sii galaya, kadibna waa ay miqeen. intii booliiska aanu imaan ayay goobtaasi isaga dhaqaaqeen. ninka la dilay waxa uu ahaa Daruush Raziya Najad, waxa uu ahaa 35 sano jir, waxaana uu ahaa professor cilmiga physics-ka dhiga, xubinna waxa uu ka ahaa samaynta nuclear-ka ay hubka dowladda Iran ay samaysanaysay iyadoo si qarsoodi ah u sameynaysay. wuxuuna u xil saarnaa horumarinta furayaasha elektaroonikada ah ee lagu dhaqaajiyo madaxda nuclear-ka. Najad ma ahayn saynisyahanka qura ee Iiraaniga ah ee la kulmay dilka waayadan dambe. rasmi ahaantiina Iran waxay sameynaysaa nuclear nabadeed. waxay sheegeen in dhaliyaha nuclear-ka ee Bushehr oo Ruushka gacan uu ka siiyay ay muhiim u tahay tamarta dalkaas, taas oo caddeyn u ahayd ujeedkooda wanaagsan. balse waxaa jiray oo la ogaaday dhaliyaal nuclear oo kala oo qarsoodi ahaa, dhammaantoodna aad loo ilaaliyo oo aan loo geli karin. muddo kadibna waa ay qiratay dowladda Iran inay jiraan, balse waa ay diiday inay hub ahaan u adeegsanayaan. sirdoonka reer galbeedka iyo ururo gudaha ka dhisan oo qarsoodi ah ayaa kashifay saynisyahano wax ka dhiga jaamacadda Iran inay ku lug leeyihiin samaynta bomka nuclear-ka ee ugu horreeyay ee dowladda Iran. gudaha dalka Iran qolo la garan waayay cidda ay yihiin ayaa dagaal xun ay bilaabeen si loo joojiyo samaynta nuclear-ka. 29 November 7:45 daqiiqo oo aroornimo ah, waqooyiga magaalada Tehran mooto ayaa waxa ay ka timid gadaal gaari oo watay Dr. Majid Shahriyari, madaxa mashruuca nuclear-ka ee dowladda Iran. markii uu dhaafi rabay ayaa wadihii mootada ee koofiyadda qafilan qabay waxa uu ku dhajiyay walax muraayada dambe oo gaarigiisa ah. ilbiriqsiyo kadibna waxaa qarxay gaarigii, halkaas ayuu ku dhintay 45 sano jirkaasi fiisikiska aadka u yaqiinay. xaaskiisana goobta ayay ku dhaawacantay. isla xilligaas jidka Atas ee koonfurta magaalada Tehran, mooto wada kale ayaa sidoo kale si la eg waxa uu ku sameeyay gaarihii uu watay Dr. Farajin Abbas oo ahaa saynisyahanka nuclear-ka. qaraxiina waxaa ku dhaawacmay Dr. Abbas iyo xaaskiisa. dowladda Iranna waxay fartay ku fiiqday hay'adda sirdoonka ee Mossad ee Israa'iil. doorka ay labadaasi saynisyahan ay ku lahaayeen mashruucan atomikada Iran waa la qariyay. madaxweyne Maxamuud Ahmadinejadna waxaa carabka uu ku adkeeyay in labadaasi nin ay sidooda gaar ahaaneed ay waxtar ay u lahaayeen dalka. durbadiina markii Abbas uu ka soo bogsaday dhaawacii waxa uu ka dhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka. raggii weerarkaasi geystayna lama helin. 23 January 2010 7:50 aroornimo, Professor Mas'uud Maxamadi oo ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala jidka Shariicati ee xaafadda lagu magacaabo Gaytariha ee waqooyiga magaalada Tehran wuxuu u sii jeeday shaybaarkiisa oo ku yaala jaamacadda sayniska ee Shariif. markii uu damcay inuu gaarigiisa uu furo, waxaa dhacay qarax weyn oo xaafadii uu deganaa oo dhan ruxday. ciidamadii soo gurmadayna waxay u yimaadeen gaarigii oo burburay oo Maxamadi cadcad oo u kala duulay. qaraxa uu ku dhintayna wuxuu ahaa bom loogu xiray gaariga oo ruux waday mooto oo uga dhijiyay gaarigaasi. warbaahinta Iran waxay sheegtay in sirdoonka Mossad ay ka dambeeyeen dhacdadaani kale. Maxamadi oo 55 sano jir ahaa wuxuu ahaa mid ku xeel dheer cilmiga quantum physics, la taliyana wuxuu ka ahaa mashruuca nuclear-ka ee Iran. warbaahinta Yurub waxay sheegeen inuu ka tirsanaa ilaalada kacaanka, balse nolosha Maxamadi sida dhimashadiisa oo kale waxay ahayd mid dahsoon oo aan wax laga ogeyn. jaalayaashiisa qaar waxay sheegaan inuu aragti ahaan garaadkiisa uu ka dhiiban jiray, balse ma uusan ku dhex jirin mashruuca ciidanka ee samaynta nuclear-ka. kuwana waxay yiraahdaan wuxuu la jiray kooxo dowladda ka soo horjeeda oo wuxuuba ka qayb galay banaanbaxyo dowladda looga soo horjeeda. haddana dadkii duugtiisa ka qayb galay waxay u badnaayeen ilaalada kacaanka iyo dowladda. naxashkiisana waxaa sida ciidamada ilaalada kacaanka. warar mar dambe soo baxana waxay sheegayeen inuu ku lug lahaa horumarinta hubka nuclear-ka ee dowladda Iran.
halkaa inoo joogta qaybta koowaad ee macluumaadka ku saabsan hakintii la doonaya in la hakiyo bacriminta hubka nuclearka ee dowladda Iiraan. waxaan filayaa inaad macluumaadyo badan ogaan doontaan insha Allah. saaxiibkay Suldaan Cali America ayaan u mahad celinayaa. qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo. halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon.